salaanka bacdi aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga isku dubaridkan iyo howlaha ay samaysay iyo qaabka ay soo bandhigeen waxaan leenahay aad ugu mahadsantihiin kaalinta ku aadaneed weeye waxaan kaloo mahadcelinayaa ganacsatada aan ogahay inay mashquul yihiin kasoo qaybgalka ay kasoo qaybgaleen oo ay yimaadeen masraxan maanta lagu daafurayo waxaan leenahay idinkana aad u mahadsantihiin arrintii hadda waxay la tahay waxaan laga dharjiyey wasaaradda ganacsiga qaabka ay leedahay annaguna wixii aan xog haynay waxaan la wadaagnay walba wasaaradda ganacsiga qaybaha soo diyaariyay oo technicalka rugta ganacsigu ka mid ahaadeen waxyaabaha yaryar oo ka dhiman oo annaga xaggeena aan tabanaynay dowladdu waxay u shaqaysay standard ay u soo diyaariyeen laakiin annagu shatiyadaan xoogaa cabasho ka qabnay shatiyada cabashada aan ka qabnaan raadkooda lagu joogaa wasaaraddu waa kala hadalnay waxay soo wasaaraddu noo sheegeen in laga fadhiisan doono mar laga wada hadli doono waxaana hadda kadib laga dhigi doono wax standard oo wadankeena dadka maalgashanaya iyo dadkeena ka ganacsanaya labaduba ay raalli ka yihiin xoogaa arrintaasa shatiyada culays ka jiray ayagana waxaan rajaynaynaa in la xallin doono haddii ilaahay idmo ganacsataduna cabashooyinkii annaga ay noo soo gudbiyeen waa u gudbinay wasaaradda ganacsiga waxaanan rajaynaynaa in la xalliyo haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waxa howlaha kale oo hadda qurxoon oo standardka oo maantay wasaaradda ganacsigu ay soo bandhigeen horeyna waan noola wadaageen annaguna xog baan ka haynay wixii aan xog haynana waa ku darnay waxaan leenahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin dowladdana waxaan arkaynaa maalin bay ku sii daraysaa in maaragtay sii horumariso tadawurka ganacsiga annaga ganacsato ahaan marka waa soo dhawaynaynaa arrintaas raalli aanan ka nahay waxyaabaha dhimanna wasaaraddan kala shaqayn doonaa waqtigoo gaaban dartiisa aad iyo aad mahadsantihiin waa idin salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu